bisha January 2024 magaalada Addis Ababa sida uu qabo hadaba dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xeerarka dalkeena iyo xeerarka caalamiga ah Somaliland waxa ay tahay qayb kamid ah Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya labo dawladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa talaabadani mid gardarra ah oo halis gelinaysa daris wanaaga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax banaanida gobonnimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya saddex waxa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dawladda federaalka ee Soomaaliya mana lahan saldhig sharci